برانس سيدا ما حكى عندنا ذي إن وحواي إن مسلسل كان وحو قارئ يهي مقدشو كيبل تي في إن برانس صحيرو كان هذا يو كرسونو indhaha hadda waa furi kartaa riyaan waa mahadsan tahay mahad celinta adigaa mudan sababtoo waad i aaminta sooma ها لكن وحير كور سؤالان كويدي جوابتي ذي مسين سؤال لكن ديكشنري مو أنا بارني وحي عطبه سؤال شان كويدي جوابتي ذي أيان كاغا باهنا وحيابيه دعودن يشرفتي ذي سيد لوغو عيار حقاك وحبك ما أهم يا محادع كما هدليسي غير كاغا شرفتو ذو كلمة كفكري محادع عني شرفتي ذي كما فكري سيدنا بس إياغو كليا دون كاغا maanta waxaa loo baahnaa aniga garabkayga inay istaagto balse waad istaagi weysa aniga waxyaabihii hore dhac waan iska iloobay saas darteed ay halkaan u imaaday igraan noqo baraanis sheegaysan wiilkaas ayeeyo ayaanu ahay inaad xirtaana looma baahneen qoftaas qof xun waay weligeedna waa xumeed qoftaas darteeda maad u xiraysaane wiilkaas
waan jeclaa waa idin baryaa ii soo daaya wax walba ha kugu qaadato wiilkaas oo keliya ii soo daa wax kale uma baahnin musalsalkani wuxuu gaar u yahay teeda kale waxaan samayn karna ma laha ilaa iyo amar dambe waynaad sugtaa adiga jawaab anigaa ku soo siinaayo taleefonka igu daminaya ka waran anaa ku aqaan dheh mar le wiilkayga bannaankaa u soo baxaan ku dhahay meel anaa ku saaraay haddaa meel ku saari waayo ku dhahay anaa kaa khaldan taleefonka kale aan wacayso yaqi taleefonka iga qabo ahaa halo sidee tahayne xaaladaada aniga ma ii qoosatayne baljiid waayno hadda ka hor labadayna waa wada kulannay waana og tahay wanaag fara badan inaan kuu sameeyey haddana waxaan rabaa abaalkan kuu gal inaad ii guddo haa aniga waay waxaan kaa rabaa maanta wiilka ayeeyo oo inaa ii soo deysa urur halin laga noqdo anaga waxaan waxba kama qaban karno wiilkaagana dembigoodha waa ku soo cadada asagana kusoo biishoobatay meeshiisuuna ku jiraa ebed xabsigoona ku duqooba garabna kuma sii karo halo ya aniga muba taleefonka igu damiye anaa ku aqaana dhay shaqadaada waa ilbaxdeed taleefonkan waa ina dhulka ku tuura taleefonka gacantaada ayuu ku jiraa lambarka saxan inaad wacdo ayaa loo baahan yahay runta haddii aan kuu sheego waxyaabaa lagugu sameeyey waxyaabo xun ayay ahaayeen aadna waan kaga xumaaday barnatiina wax fiican maysan samaynin familkaaga sharaftooda ayay ku cayaartay ayay macaan naag barnatiyoo kale marba gurigaaga haddii aad keensatay maxaa diidaya reerkaaga sharaftooda inay ku cayaarto maxaa yeelay reerka qiimihiisa maba taqaanaba runtii ayay wixii dhacay aad ayaan oga xumahay fiiri bal meeshaan ugu dambayntii waa aragta wiilka heer kurana ugu weyn gacanta maanta lagu dhigay xabsigaana loo taxaabay ninkaas wuxuu isku dayay dumaashadiisina xadgudub ku sameeyay anigana midaas ma ka filayna marnaba midaas ayuu samaynaa misdeen baljiid korn familkaas famil wanaagsan ay ahayn wiilkooda inuu saas u dhaqmay muu malaynina marnaba su-aasha isweydiinta mudan midaas waay sidee bulshada ayada wejigeeda horgeyn doontaa baraanid iskaga yaafi oo maxaa ah musalsalkani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable tv waxaa laga badaa soma sida quruxda badan ee aan kuu raaligeliyey baraanid runta haddii aan kuu sheegay yaraanteeda erayada noocaas oo kale maahan isticmaali jirin sababtoo ah waxaa nala bari soomaa xumaanta iyo wanaagga mid in ay yihiin laakiin maanta raaligelinta aan ku raaligeliyey waa midaan ku qanacsanaa qofkan mar eray uu dhah hadduu ku qanacsan yahay waa u farxad reer kulaanaa haddii aanna anaga lacagta oo keliya ayaan aaminsanayn bini'aadanka agteen waxa muusan ka een oo waxaan jeclayn sidaa doonno inaan ula dhaqan balse ugu dambayn waxaan arkaa inaan isbeddelay tallaabooyin qurux badan xilligaan la taagaya aan qaadayo tallaabadaasoo ah maanta qof inaan raaligeli karo cafisni aan weydiisan karo anigana aan noqday qof hadalladiisa lagu kalsoonaa karo waa ii farxad ila fahanti sooma maanta qofkii hortaagan riyaanji kuraana maaha ee waa riyaanji oo keliya riyaanjigaasoo runta iyo beenta kala yaqaana xaqiiqada dhabtaahna mar walba garab taagan wax walboo dhacay hore ayay u dhaceen riyaanji waana laga soo gudbo maantana waxaan ku faraxsanahay maadaama aad isbeddeshay oo aad tahay qofkii loo baahnaa in aad noqoto maadaama maanta reer kuraana fikirkooda aad ka hortimid waxaa loo baahan yahay
mar walba sidaan inaad ahaatood iska beddelin runtana aad garab siiso fikirradii horena aadan dib ugu laaban waad aragtaa soo maaha wax walbana indhahaaga ayaad ku aragtaa reer kuraana sharaftooda iyo sumcaddooda dhulka in lala galay anigana qof hadalkayga dhegaysanaya maba lahanba saa'id ayaan u walwalsanaa ayeeyo midda kale ayeeyo runta haddii laga hadlana fardaan wuxuu sameeyey wax aad iyo aad u xun ayay ahaayeen laakiin wax walba uu sameeyey looma baahnayn saxaafad iyo boolis in meesha looga waco arrintan familka ayay qusaysaa guriga in lagu xaliyana way ahayd runta haddii aan kuu sheegana ayeeyo wax lagugu sameeyey wax wanaagsan ma ahayn hadda wixii dhacay adiga qaladku ma lihid sidaasay tahayna sumcaddaada ayaa baaba'ayso ayeeyo haddii aad adiga sodoh ii ahaan lahayd ambariyaaj xaaskiisa aan ahaan lahaa aabbahaygaa wici lahaa kiiskaan iyo waxyaabaanna isagaa soo gabagabayn lahaa wiilkaagana bannaankuu joogi lahaa laakiin maxaan sameeyaa riyaanj xaaskiisa waa noqon waaye dhibkaanna kuguma fiidhsan kara ayeeyo iyo aamin aad ayaan oga xumahay aabbahaygaa wacaya arrimahan iyo kiiskan iyo waxyaabahan isagaa soo gabagabaynaayo warbaahintan markaas kadib waxay ka dhigi karta ma lahan sharaftaada in lagu tunto aniga ma oggolaanayo kiiskaanna anigaa kaa soo afjaraayo waan ogahay gabadhayda riyaanji xaaladduu ku jiro inaad u adkaysan karin mar walbana asiga dartiisa ah wax walba aad u samayn jirta gabadhayda maxaan sameeyaahe xaaladda ayaaba sidaan iska noqotay ayey adiga kan uma baahnid ee kan ayaad u baahan tahay hoo cab middeeda kale waxyaabihii shala kuugu dhaca waxyaabo qaab daran ayay ahaayeen qofta maa hadalkeeda aaminaysaa wariyaa ها قفصة رنا يا شيخ سايل وريا abka ayaan kaa jibinaa ninkan wuxuu rabo dumaashadiisa sharafteeda inuu ku ciyaaro taasi maaha loo dulqaadan riyaanji indhihiis waxaa iiga dhex muuqdo kalgaceelka ugu qabo barmatee taasna ma yeelaayo kugu dhaca ayey may gabadhayda waxba iguma dhicin riyaanji arrimihiisa ayaan ka fikiraya rayaan runta haddii aan ka hadlo maanta maalin iiga farxad badan ima soo marin sababtoo waxaan helay weligay waxyaabihii adiga aan kaa rajaynayay waan ogaa maalin uun adiga inaad isbeddeli doontid runta waxay tahayna aad ogaan doontid maantana runtii waad isbeddeshay xaqiiqaduna waa ogaatay wax walba oo labadeennan dhex maray ehdooda dusha aniga ayaa iska saari jiray sidaasay tahay mararka qaar waxaan isdhihi jiray ninkan nin wanaagsan maaha waa nin xun haddana qalbigayga markaan la tashto waxaan isdhihi jiray waxaa macquula maalin maalmaha ka mid inuu isbeddelo maantana wakhtigii ayaa la jooga oo adiga waad isbeddesho qofkaan rabayna waad noqotay qof xumatiid rayaanji laakiinse qof xun ayaad iska dhigtaa qalbigaaga wanaag fara badan ayaa ka buuxa rayaanji xaqiiqdii qof aad iyo aad u wanaagsan ayaa taha rayaanji wanaagga maanta horteeda ka muuqda waxaa loo baahan yahay dunidoo dhan inay aragto maanta riyaanjigaan hore u aqaana ma tihid waxaad noqotay riyaanji cusub
runtana mar walba garab siinayo wanaag fara badan ayaa kaa muuqdo midaasna aniga waan ku faraxsanahay waxyaabo fara badan inaad qarinaysid balse xaqiiqada in la qariyo looma baahno runta waa inaad bannaanka keentaa aabbo hooyo maxaa dhacayna ii sheega jignuub maxaa kugu dhacay gabadheeda wax maa dhacayna mase aniga leeriyo xun ku riyooday maya gabadheeda waxba ma dhicin isdeji adiga sheekada wax iska gaaban oo keliya ay ahayd yaa cod maa maqlay mise aniga la ila ahayd ii sheeg hee aabbo sidee wax u jiraan waa ku baryaa ii sheeg gabadheeda quruxda badneed riye oo keliya ayaad ku koobnayd haddana waxaa wanaagsan maadaama indhaha aad kala furtay inaad ka sii socoto orod wejibiya iska soo maraya riyada heed eedariya hadday ogaato ilaa xilligaa inaad soo jeedo way iga xumaanaysaa aabbo wayna igu qaylinaysaa ma laga yaaba qof inuu kugu qayliyaa mar rub anigaa garabkaaga taagan orod haddana ii seexa gabadheeda shaxshaxda badneed ayay arrinkaa cid ka xumaanaysa ma lahan anigii riyaaj hal mar leen isku keen soo dhoweey hal mar le gurigan aan ku soo biiro kadibna aabbeyga wax walba anigaa ka qancinayo gurigaa markaan ku soo biirana barnatiib bannaanka ayay u baxaysaa adigana waa farxe anigana waan farxaa xaaladdaadii middaydana waa isku mid ka fikir maanta riyaanji kuraanaa ima hortaagna riyaanji oo keliya ayaa i hortaagan weliba riyaanjigii aniga aan aqaanay oo wanaagga badnaa dunidoo dhan waa in laga ogaadaa qofka aad adiga tahay isbeddelka maanta horteeda aad ka muujinaysid dadka hortooda waa inaad ka muujisaa anigana waan ku farxayaa markaas haye yariisteeda qurax badneed ku dhace qorax ii seexaya runtii hurdada markaad ka soo toosto qoraxlayaa noqonaya hurdada bada hurdada runtii waxaa qalad ah gabarii hooyadeed in la kala fogeey intaasnoo ka soo horjeeda riyaanj adiga waad cabsanaysaa waxaadna ka cabsanaysaa baraanad iyo gabdhaada jugno inay kaa fogaadaan xal raad familkaada gacantas waa inaad ku dhigataan farxad inaad ku wada noolaataan haye ayay fikirkayga ma igu raacdayna haa gabadheeda maxaan kuugu raaci waayena